anigoo ah Dr. Maxamed Maxamuud Xasan ahna gudoomiyaha midowga jaamacadda Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha jaamacadda Banaadir runtii waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka ahaado shirkan loogu sii gogol xaareeyo shirweynaha qaran ee la qaban doono bisha 5 May ay soo abaabusay wasaaradda beeraha iyo waraabka oo runtii ah barnaamij aad u muhiim ah bacdana adduunka maanta uu u baxay isku tashi in mataqaana haddaan baada jaamacadda waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano cilmi baarisyada sidii loo horumarin lahaa aqoonta cilmiga beeraha loo gaarsiin lahaa in baahida dalka loo dabooli lahaa waayo beeruhu waxay tahay aasaaska nolosha Soomaaliyeed weeye waa waxay ku dhiseen wax soo saarka dalka marka laga eego dalkeen wuxuu ku dhisan yahay waa beeraha xoolaha iyo badda sida aawada haddaan baada jaamacadda waxaan aad iyo aad ugu diyaarnahay inaan qaybna ka noqono kuna soo bandhigno cilmi baarisyo loogu gogol xaareeyo sidii loo horumarin lahaa aqoonta cilmiga beeraha iyo xoolaha iyo badda intaba si mataqaana bulshadeenu ay iskugu filnaadaan una helaan mataqaana baahida maanta adduunka ka taagan saan uga badbixi lahayn waayo isku tashiga waa laga maarmaan way si isku tashado waa in mataqaana aqoonta iyo maskaxda la isku kordhiyo waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda beeraha iyo waraabka oo runtii aad soo abaabushay barnaamijkan quruxda badan leh ee lagu soo bandhigayo shirweynaha si la saga kaashan lahaa horumarinta aqoonta cilmiga beeraha oo ahaan loo kordhin lahaa wax soo saarka dalka oo mataqaana bulshada isku filnaan lahayd aad baan u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.